Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa maalinimo Isniina, taariikhduna ay ku beegan tahay 16 bisha saddexaad sanada 2020. Qodobada aad ku daawan doontaan hadduu Eebbe raali ka noqdo waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Masar oo farmaajo ka dalbaday inuu dhexdhexaadiyo dalalka Masar iyo Ethiopia. Magacyada mas'uuliyiinta laga qaadayo ilaalada kadib amarkii ka soo baxay Odawa. Axmed Madoobe oo dalacsiiyay taliya diiday shirqool ay waday dowladda federaalka Soomaaliya. Senator Cabdiraxmaan Faroole Axmed Madoobe aqoonsi uguma baahna dowladda federaalka. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan xogta daasoon. Haddii ay tahay daawade markii kuugu horeysay fadlan subscribe inoo saar si aad u heshid macluumaadka aan halkaan soo gelino, lana sii wadaag asxaabtaada adigoona u sii sheer gareynaya. Waana ku mahadsan tahay daawashadaada. Aan ku bilownay madaxweynaha Masar oo dhigiisa farmaajo ka dalbaday inuu dhexdhexaadiyo Masar iyo Ethiopia. Madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Asiisi ayaa dhigiisa Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dalbaday inuu dhexdhexaadiyo isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed. Asiisi ayaa qoraal uu Axadii soo gaarsiiyay madaxweyne Farmaajo ugu baaqay inuu kala shaqeeyo xal u helista arrinta biyo-xireenka ee haatan isku hayaan labada dal. Warqadda la soo gaarsiiyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa keenay kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ee arrimaha Afrika Abuukar Xinfi Maxamuud. Kaaliyaha oo wareysi gaara siiyay idaacadda Goobjoog ayaa sheegay in xukuumadda Qaahira ay rajo weyn ka qabto inuu Farmaajo xalin karo xiisadda u dhaxeysa wadamada Ethiopia iyo Masar isagoona ka faa'iideysanaya saaxiibtinimadiisa labada dhinac. Soomaaliya waa dal muhiim ah, siyaado iyo miisaan leh, xiriir fiican la leh labada dhinac. Waxaan hubaa in madaxweyne Farmaajo uu ka faa'iideysanayo xiriirka saaxiibtinimo ee ra'iisul wasaare Abiy uu xal u helista biyo-xireenka qayb ka noqon karo Masarna saacidi karta, ayuu yiri Abuukar Xinfi Maxamuud. Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday kaaliyuhu ahmiyadda uu webiga Niil u leeyahay Masar, isagoona carabka ku dhuftay in la'aantiis ay sababi karto shaqo la'aan baahsan. Webiga Niil waxaa ku tiirsan biyo ahaan 97% dalka Masar. Dalkeena ma jiro Niil la'aantiis waa amni qaran. Haddii dhibaato soo gaarto waxaa shaqo la'aan noqon doona 4 milyan oo qof, inta kalena biyo la'aan iyo haraad, uu sii raaciyay Abuukar Xifni. Masar iyo Ethiopia ayaa in muddo ah isku haya arrinta biyo-xireenka ee webiga Niil, iyadoona ay fashilmeen wada hadallo lagu dhexdhexaadin lahaa labada dowladood. Magacyada mas'uuliyiinta laga qaadayo ilaalada kadib amarkii ka soo baxay Odawa. Taliska ciidamada militariga Soomaaliya ayaa xalay soo saaray amar lagu joojinayo dhammaan shaqooyinka leexsan oo ay qabtaan ciidamada xoogga dalka, oo micnaheedu yahay inaysan ilaalo u noqon karin shakhsiyaad kale. Amarkan ayaa si toos ah u saameyn doona dhammaan mas'uuliyiintii hore ee dalka oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Warar aanu helnay ayaa sheegaya in dadka uu go'aankani saameyn doono uu dhammaantood xilal sare ka soo qabtay dalka, waxaana mas'uuliyiintaasi ka mid ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii ka horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda ka maqan dalka kuna sugan Turkiga. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo xilka iska casilay sanadkii 2018 kadib khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo xukuumadda. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo ku sugan Muqdisho, saaxiib dhowna la ah madaxda talada haysa. Dhammaan taliyaashii hore ee ciidamada xoogga iyo kuwii booliska ee ku sugan dalka, waxaana ka mid ah Janaal In Qarshe, abaandoolihii hore ee ciidamada xoogga dalka Janaal Gacmo Dowle, Janaal Qaafo, Janaal Gorod, Janaal Caanood, Janaal Buud iyo mas'uuliyiin kale. Sidoo kale dadka amarkan ciidankooda ku weyn doono waxaa ka mid ah taliyaashii hore ee ciidamada badda Admiral Ofuro iyo Admiral Faarax Qare. Shakhsiyaadkan iyo kuwa kale oo la isku dhaho VIP ama shakhsiyaadka muhiimka ah ayaa amarkan ku weyn doono ciidankii ilaalada u ahaa, waxaana durba soo wajahday cabsi xoog leh. Dad badan ayaa arrintan u arka cadaadis iyo halis lagu gelinayo ammaanka dad muhiim u ah qarankan oo soo shaqeeyay xilli adag, waxaana madaxda dowladda Soomaaliya loogu baaqay inay si degdeg ah u joojiso amarkan. Axmed Madoobe oo dalacsiiyay taliya iska diiday shirqool ay dowladda federaalka Soomaaliya damacsaneed.
madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta dalacsiiyay taliyaha ciidamada daraawiishta maamulkaasi ee ka howlgala degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Axmed Madoobe ayaa maanta oo Isniina gaashaanle Mahad Maxamed Islaam u xiray darajada gaashaanle dhexe kadib markii ay Jubbaland shaacisay inuu diiday qorshe ay ku sheegtay shirqool iyo afgembi ay la damacsaneyd dowladda dhexe ee Soomaaliya. Mahad Maxamed Islaam waxa aan ku amaanayaa wadaniyada iyo daljaceylka uu muujiyay isaga oo iska diiday shirqool iyo afgembi la doonayay in lagu minjixaabiyo nabadgelyada degmada Afmadow, taas oo dowladda federaalku ay damacsaneyd. Sidaasi ayaa waxaa lagu yiri qoraal lagu daabacay warbaahinta gaarka ah ee Jubbaland. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale saraakiisha iyo ciidamada maamulkiisa kula dardaarmay inay daacad u noqdaan shaqada adag ee u hayaan shacabka. Dhawaan ayay ahayd markii muuqaal laga soo duubay taliyaha degmada Afmadow Mahad Maxamed Islaam uu kaga hadlay sheeko uu tilmaamay inay dhexmartay isaga iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka, gaar ahaan taliska hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. Xiisada dowladda federaalka iyo Jubbaland ayaa u muuqata inay sii xoogeysanayso marba markii ka dambeysa, taasoo kasoo bilaabatay doorashadii muranka badan dhalisay ee dib loogu doortay Axmed Madoobe islamarkaana dhacday sanadkii lasoo dhaafay ee 2019. Senator Cabdiraxmaan Faroole Axmed Madoobe aqoonsi uguma baahno dowladda federaalka. madaxweynihii hore ee maamulka Puntland haatan ah senator ka tirsan aqalka sare Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa warbaahinta isagoo ugu waramayay gudaha magaalada Garowe ka hadlay xaaladda cakiran ee maamulka Jubbaland, gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolka Gado. Cabdiraxmaan Faroole ayaa markii ugu horeysay eedeyn u jeediyay dowladda dhexe, waxa uuna sheegay inay ku xadgudubtay nidaamka federaalka sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in faragelin ku hayso arrimaha gaarka ee dowlad goboleedyada, gaar ahaan Jubbaland. Senator Faroole ayaa sidoo kale madaxda dowladda ka dalbaday inay si degdeg ah ciidamada ugu soo saaraan gobolka Gado si loo qaboojiyo xiisada ka jirta gobolkaasi. Dhinaca kale wuxuu carabka ku dhiftay in Axmed Madoobe uusan aqoonsi uga baahnayn dowladda, isla markaana uu aqoonsan yahay dastuurka Jubbaland. Axmed Madoobe aqoonsi uguma baahna dowladda federaalka, waxaa aqoonsan dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland. Dowladda federaalka Soomaaliya iyada ayaa faragelin ku haysa maamulkaas, ayuu yiri madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Senator Cabdiraxmaan Faroole. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyay ay sii xoogeysanaysay xiisada u dhaxeysa ciidamada dowladda Soomaaliya ay geysay gobolka Gado iyo kuwa Jubbaland oo dhawaan ku dagaalamay qeybo kamid ah magaalada Balad Xaabo ee gobolkaasi.